waxaan isu reebanaynaa ma jiro maqalaay warlaay ma lagu warramay walla been iyo hadal baad isku maawiilseene wax la isu qarinayaa ma jiro wax la isu qarinayaa ma jiro seki alaykum salaam السلام الله عليكم مر لبعض يا مر صدحات وإن السلام يا سوي دوادا وإن سكب لنا إن شاء الله وشن دقيقة ما قاعد شن دقيقة يسوق لها إناد صو أرتان ساعد صوير حوجا وصولا كاتان الله محمد ماشي يجيب محمد ماشي إسكت حفر دان ولا الله يلا أدم هتنتين صو دافع وحان ربع وين عن دور قلب كهالله دور كيك قلب إن كهالله يا وحويا كو deegaankeena xaaladiisa laba damaca oromada saddex dadka danaystaha afar damanaanta dadkayga afarta qof miiska ay saaran damaca oromadu waxay igu raadsanaysaa anigoo kala daadsan oo kala jeeda dadkeennii waxaad moodaa dad cadowga mar walba u dhagan nugul laakiin qofka dhaladkii waxbuu xeeriyaa isagoo cadowga u dhagan nugul iyo qofka dhaladkaa ee xalaashii wax xeeriyaa laakiin qofka aan xalaasha ahayn waxba ma xeeriyo xeerkuna ma qabto soomaalinimadu ma celiso wax celiyaa ma jiro sida biyuhu u socdaa taqba iska dhaha axmed uu soo dhoweynaade ninka dadka deegaankayga maanta midnimadooda qafna ugama daba fadhiyo waa muqadas ama qayli ama ooy ama oromo dabada ku wado ama dad aan la aqoonin soo kaxayso soomaali galbeed midnimadeeda qofna ma hor istaagi kara maanta hal qof oo hor istaagi karaa ma jiro okay waxaan rabaa inaan dul istaago qofku marka uu nadiif yahay aniga hadda iid ah waxaan dhaliili karaa ogaadeenism baan dhaliili karaa ogaadeeniyaan dhaliili karaa soomaali galbeed baan dhaliili karaa dulmidiid baan dhaliili karaa qof xor ah baan ahay waayo nadiif baan ahay anigu qof xor ah baan ahay oo shaarkiisu nadiif yahay oon dulmi geysanin oo qof dulmi wada aan difaacin qof nadiifa baan ahay laakiin adiga oo nadiif ahayn oo uskag leh oo qof da'aya ah oo shalay dad dulmiyayey oo shalay cadow hoosta ku watay oo shalay kii dadka xidhxidhayay xambaarsanaa af aad cid ku dhaliishaa malihid waxaan idiin sheegayaa jigjiga gudaheeda qof dhallinyar ah oon ciidan ahayn oon qof dilin oon mulatari ahayn oon xil haynin in aad ku mashquusho oo dhahda maxay buu yahay iyo heegu yahay taadii iyo ta adeerkaana aad qariso aniga iid ama maskaxdayda geli mayso qabiil baa ku qaaday iyo qabyaalad baa ku qaaday adigu malaha quraan baad akhriyaysaa markaad leedahay dad waxaan arkaa leh qabiil u xuniya waaweyna adigu marka aad adeerkaa oo daalim ahaa oo mujrim ahaa oo hooyada iyo aabbaha oo ku dhalay intay soo istaajiyeen ay ku lahaayeen heegaan nahay aad ii dhegaysta heegaan nahay kumaanaan dhalin hebelow ee aabbaha iyo hooyada ay heega ammaanayeen ay kaa soo hor jeedeen oo adigii ay ku dhaleen ku lahaayeen kumaanaan dhalin waad ka soo jeedsatay heega gurigii hooyadaa bay ku jirtaa hooyadaa iyo aabbaha ka soo bilow aad ii dhegaysta dad badan oo waxaa jira iyagii oo daalim ah raba inay dad magac ku beegsadaan xaqiiqaan idiin sheegaya maanta haddaad heega dad rabta inaad
cunsurinimo kaga dhigto oo dad ku cunsuriyeysa magaca heego heega adigaa ahaa welibana tii waaweyneyd ee mallis baad ahayd gaalkii mallis ahaa ee bidaarta lahaa tiisii baad ahayd ma af lagaa doonayo mana jecelina qof alla laga doonayo laakiin xaqiiqada kama xishoonayo qofna yuu boolis ammaanta oo dembiile ama jiro laakiin kuwii amraya baa dembiile ah aad ii dhegeysta ayaa amrayay new booliska waxaa amrayay semeter haybe jigjiga maan baa amrayay markuu difaacaya cabdi ilay markuu xalfadda dhaqaalaha ku bixinayay marka uu dadkii cabdi ilay ka soo horjeeday uu dhagax tuurayay wuxuu ahaa ninka dhaqaalaha ku bixinaya new bolis iyo say u dhisnaan lahaayeen ninkan mas-uulka new booliska ee dadka laynaya mushaharka siinaya buu ahaa saaka jigjigaman wuxuu yidhaahday waxbuu soo qoray wuxuu yidhi rooblow noocan iyo noocan rooble qof ma dilin muna dhafoorinin ma dhagax tuurin ilmo yaroo beriiskiisa iska raadsanaya buu ahaa wuxuu doonaya ha ahaado tii rooble ee shalay cabdi ilay uu la joogay uu cabdi ilay ku garab taagnaa maantana oon qaranka on elaf ku qaatay waad la yaabtay tii aad shalay dadka ku dhagax tuuraysay aad ii dhegeysta si sheergareeya khayr allah in siiya tii aad shalay dadkii xalfadaha qabanaya ee dulmiga diidana aad ku dhagax tuuraysay qalbi dhagax markii la dhiibayna aad ku sacabtumaysay eed adigu samaynaysay waad ilowday laakiin ta ogaadeyn baa kuu muuqata haddaan anigu qabyaaladaysta ahay adigu malaha qur'aan baad akhriyaysaa iyo xadiis baad wadaa aqligu inna shaqeeyaa loo baahan yahay shalay waxaad igu beegsanaysay ood igu eryanaysay on elaf maantana waxaad rabtaa inaad heega igu beegsato cabdilay waan ognahay dembiilu ahaa laakiin waxaa la raadinayaa waa qof la sawirnaa saaka wuxuu soo qaatay wiilka sababtan ugu mashquulaya waxaa weeyaan inaad qof maran ahaataa looma baahna waa inaad aqligaaga ka shaqaysiiso wuxuu soo qaatay rooble oo qalanka oo neelaf haysta isagoo cabdi la sawiran 32 qof yaa ku cabdi la sawirnaa sameter haybe oo jigjigamaan ku isticmaalay facebooka 32 qof ayaa kiisi u soo qaado u soo dhigay hal qof umna jawaabin fartuun baa welibana waxay u soo qaadatay miyaad ilowday markaad aabbahay ku wiirsanaysay wuxuu u soo qoray uu yidhi aan kala xishoonno raaligelin kuma deeqda miyaa adigu miyaad xishoonaysaa mise xaar baad faraha kula jirtaa xaqiiqada waxaa loo baahan yahay dadkeena inuu damiir ku shaqeeyo qofka islaamkii inuu xishoodo qofka maanta nolol ii diidan ee shalay on elif igu leynaya maantana raba heege inuu guriga ii geliyo isaga oo dadka abaabulaya aabbihii iyo hooyadii iyo walaalkii ay ahaayeen maxaa on elaf heege ka dhigay maxaa ogaadeen heege ka dhigay oo dadkii kale ka saaray maxaa rooble iyo dhallinyarta la midka looga soo dhex qaatay haddaad rooble u baahan tahay shaksi ahaantiisa maad u eryatid haddaad shalay ogaadeen mid baan kuu sheegayaa aamuska waa waxa la igu beegsado aamuska waa waxaan isdhaho kayga kale ee ka daalimka difaacaya waa waxa aan yacnihii aan hebel baa hadlaya uga xishoo isleeyahay dulmidiid wax sixitaana oy ku jiraan ma jiro hal qof oo dulmidiid ah war on elef waa qabiil waanaad ku qasbantahay inaad qaadato I don't care waxaad doonay adiga ka aaminsanow ama qabiil ka aaminsanow ama qaran ka aaminsanow xaqiiqaan kuu sheegaya haddaad adigu qabiil ka dhigto cidba kuma laha ma aha laakiin adoo shalay cabdi ilay gamcaha hoos dhiganayay anuu la dagaalamayay iguma riixi kartidii adoo markii guunagado iyo dhanaan iyo muhollin iyo qoriile iyo danood iyo bilqod dadkayga lagu xasuuqayay qofka soo xasuuqa jigjiga aad mujrimka aad beriis ugu karinaysay minnesota markaan kaga mudaharaadana aad samaynaysay waxaa xaqiiqa inaadan qof deegaanka ilala ahayn ood oran tahay
ood from oromo ahayd waayo oromaad sheegatayba waxaa waajib ah in aan dulqaad laguu samaynin waxaan ognahay ma garanayo qof dhalinyarta on elaf u ololeeya ma difaacaya laakiin aakhare dhinaca ii geli maayan laakiin xaqiiqadan idin sheegaya ma arag qof on elaf dhalinyarta u ololeeya ama taageero ah anuu qof xumina kama hadlayo dhalinyarta taageera oo qof aan aflagaadaynin oon soo caayin intay iska soo qaataan iyagoo haysta iima sheegi kartaan qofka marka ay arkaan xumidiisa ayay u jawaabaan okay aan ku soo qaban soo dhawaada siina sheergareeya waxba la isku reeban maayo waxaa socda filim ah in aniga heega la igu eryado adigun baa tegi ninka mar walba dulmiga taageeraya unbaa tegi qabo waxaan u baanahay dadkan heega igu riixaya ee iyagii ka soo cararaya dadkii soo aas-aasayna caawa inaan yacnihii aan su-aalo weydiiyo ma jirto awoodaad igula dooda ma lihid okay soo taagta gacmaha janis baan idin siinaya ya alaykum asalaam qofka markaan soo infeed galay hore oo qabto cabdii liigu tegay kaamerada furo cabdii liima jooga laga cabsan jiray ilaa hargeysa leefka laga soo galaa hadda way cabsidii ka dul tagtay soo dhawow way aftaan ma cabsanayo ma dhawaysaa may mawduuca in aan shalay on elf liigu eryanayay maantana aan heega ahada la rabo heega in aniga la iigu cagajugleeyo la iigu cabsiiyo maya abti macaan horta dhegeyso heega waxa weeye dadka o dhan weeye kow dhan ku soco hadal hallo khadka xamar walaal ma maqshaan ma dhankaaga de ani si fiican ma ku maqlaay waxa ku walaal horta heega waxa ku niyo dadka o dhan weeye kow dhan dhalinyarta magaalada ku wada jirta faysal daahir kaamerada inaad soo qabsato weeyaan kuma soo qaban karo cabdiqaasim in adeer aad baan kuu garanayaa in aad life aad ila doodaan jeclaan lahaa on elaf haddayba halagala noqotay intee in la eg baad adigu bahal hiigla ahayd badbaaldiga qashinka lagu gura ahayd intee in la eg baad ahayd marka qofna kuma riixi karaysid taas qof kasta maaragta waa in loo jawaabo oo la iska celiya lagama yaabo in aad maanta heega aniga wax kale iga dhigto inaad soo dhawow assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeye ciidow horta dadku in wax la isku qaldamo heega haddii la yidhaahdo deegaanka o dhan baa wada heega ahaa war heega kuwa kasii daran baa heega ataagaya oo tiima lis bidaarta lahayd xitaa wata yaa hadda heega wax rabana ka sheegan may walaale heega haddii la yidhaahdo degmooyinka dhan ee deegaanku waa laga wada sinaa ururka dhalinyarada ee degmooyinka bay ahaayeen waxaa heegada lagu leeyahay wax macno la weyn oo saas ma oho qabiil keligiina ma oho wax hadda dhakada laga saari karo taayada ayee kaama yeelayo in adeer oo aniga aabbaha iyo hooyaday intay life soo fadhiisteen ayay dhaheen heegaan nahay anigana waa idafireen kula hadlaya marka aabbaha iyo hooyada intaan qariyaan ku leeyahay adigii oo halgamaya oo la dagaalamaya heega yaan ku leeyahay heegaa tahay aabbaha iyo hooyadayna gurigoodii bay joogaan oo heegada dadkii abaabuley ahaa مش معقول waxaas waxa weeye waa been la isku sheegayo beentaasna dee maxaad u qarinaysaan marka maad ku tuftaan oo nacal abuu ku dhahdaan adiga hooyadaaba yaa waxaad sheegaysa iyo gaala kalkaal ah maxaad uga aamusaysaan qofka xumida dadkiina raba inuu kala dilo qofka aan noloshiina iyo wanaagiina rabin maxaa looga aamusayaa inaad dhigayso arrintaas aanu xataa caawadan nin barnaamij daadiinaya anu oo kala qayb qaadanayay
arrintaasi waan caddeeyey waxaan idhi adeer heega haddii la yidhaahdo waa dhalinyartii deegaanka dhan qabiil kelina ma aho gobol walbay lahayd oo maxaan dhahaye gobolkii u horreeyey ee cayda soo bilaabay waa la ogyahay meeshuu ahaa gobolkaasi iyo shiniilu ahaa degmo walbana way ka jirta heego qabiil keligiinna cid dhakada laga saari kara ma laho taa iyadu middaas weeye laakiin waxaa aniga meesha qabiilkaygu heega ma aadi adiga qabiilkaaga heega aniga qabiilkaygu heega maaha adiga besaan qabiilkaagan heega ka dhigi middaas markuu dhaho adeer waxaa la yidhi qof hadlay hadalkiisu meel gaari maayo hadduu iska caytamo dameer dhuuse un maxaan dhahay sheekadiisoo kaleeto meel la mid tahay waxba kaasi ku sii saqajaan mayno laakiin midda meesha ku jirta waxay tahay dadkanu midnimadiisa see looga shaqayn karaa waxaa weeye in adeerow aniga hadda waxaan arkay dad waa dhoweyd jabhadda ururka oon alif caayayey baraha bulshada ku caayayey shalay tan calankii oon alif huwan bal hadduu fiirso waxaa weeye anigu horta arrinta ilaa hadda meel aan u qaadi lahay iyo system aan u qaadi lahay ma aho qofku markuu dembi gacmaha la galo waxna wuu kala yahay waa carruur yar yar oo heega carruurtu waxay hayaan rag yar yar oo dhalinyaro ah hello waan ognahay heega waxay yihiin waa loo baahan yahay heego dhalinyar bay ahaayeen aad adigoo ujeedada aad on elf iyo waxyaaba war on elf waxyaaba iska easy aad ku daba gabato ma aha xaqiiqada la isu sheegi lagama yaabo adiga oo shalay kumanaankii nin ee dhimanayay ku duldhaantinay oo ku faraxsanaa in aad maanta ani heega iigu baqbaqdayso lagama yaabo mana u malaynaya inaynu laba qof oo deegaanka ku wada noolaan karanahay anigii adigaas waxaa samaynaya ku soco in adeer kusoo dhowo axmed xaaji asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ku salaamayaa brother waa soo dhaweynaya barnaamijka aad daadihinayso maasha allah kolley gadaal baan kala soo qabsadaan u malaynaya laakiin waxaan u malaynayaa mawduuc heegi iyo noocaas ku saabsan yaan u malaynaya haa in adeer mawduuc wuxuu ku saabsan yahay dad heegadii raba dhalinyartii heegada ahayd raba in ay qabiil ka dhigaan oo in ay reer ka dhigaan oo in la leeyahay on elf waa heego war on elf haddii ay nabad qaadato haddii ay wax samayso ma heega meel ayna joogin bay tegi heega waa dadkii waa deegaankii oo dhan heego waa dhalinyartii deegaanka marka waxaad moodaa in la rabo deegaanka xasiloonidiisii iyo midnimadii in khalkhal la geliyo oo dad gaar ah hadalkayga u fiirsa dad gaar ah marka hore magaca on elf ku ataagi jiray oo ku eryan jiray haddana inay u xidhaan shaal la dhaho heego si loogu dhameeyo si loogu ataago oo loogu dhameeyo oo yacni cabdi baa meeshii hore la ataagayay cabdi meesha ka bax markii hore dhalinyar kale lama soconin cabdi iyo dhowr iyo 10 nin oo mas-uuliyiin ahaayeen heego dad u abaabulay bay ahaayeen kuwii hore u abaabuli jiray bay ahaayeen dadkan sidan la majoritigoodu waa dadku qurbaha ka abaabulayay markii isagan cabdi uu ka abaabulayay heega way ka daraayeen kuwan hubwatayaal bay ahaayeen Minneapolis Mareykanka iyo Australia ku dhagax tuurayeen dadka on elfta dadkii noocaas ahaa ee ficilada sameeyay xitaa shirarkii ugu horeysay lagu ixtiraamay fiiri halka Soomaaligu qofka far buu kugu dayay farti haday kugu gasho tul labaad buu kugu dayay labadii haday galaan shanta buu ku gelin dadkii saas ah shirarkii ugu horeeyay ay furteen dhalinyarta midiid waxay ku bilaabeen mikrofoonkooda in ay dhahaan waxaan nahay cabdiyow dadkii nabadiidka dhulka ka dhameeyay kursiga kugu fadhiisay nabadiidku ayaa on elf maalinkii qalbi dhagax la dhiibay raggii soo hanjabay eelahaabay ahaayeen dhiigyo cab weeye daalim weeye waan raali geliyay raali gelin ka bixiyay ani raali gelinta imaada sameeyay qalbi dhagax markaad ogaatay inuu soo baxayo raali gelin taas aqliga biyigama jiraan marka dadkii in adeer ficilada sameeyay haddaad yacni dadkaadii ka mid ahaydna waan kuu sharaxayaa un haddaan ka mid ahayna fikirkaad ka dhiiban kartaa dadkii ficilada sameeyay oo nadiif ahayn oo wixii ay sameeyeen aan ka maydhanin oo ku dhex jiraan in welibana ragga ficilada sameeyay hooyadood iyo aabood intay soo hadleen bay dhaheen anagu heegaanahay
cabdi maxamed cumar baan yaan taageersannahay ninkaas nama matelo oo isagii ay dheheen nama matelo hooyadii aabihii uu ka soo booday iyo reerkoodii isagu wuxuu sameeyey uu ka soo booday on elef buu yidhi waa heego marka inaad maxaad u aragtaa maxaa la isdhihi karaa nadeer bismillahi raxmaani raxiim aad iyo aad baad u mahadsantahay maasha allah mawduuc aad u wanaagsan weeye laakiin waxaan doonayaa wax yar inaan laftaadu aan kula wadaago aan kuu sheego tayada markaad ka baxdeed dhamayso iyad ani ii sheegi doontaa laakiin marka hore taan ku weydiiyey saad u aragta ka dhiyo inadeer saan u arko sidaad u aragtaan u arkaa arrintan waa arrin baadil oon xaq ahayn waa taargeedsi cad oo biilsu soo marinin inta hadda jajabka iyo xaabada hadhay yaa waxaa la doonayaa etoobiyada kale in lagu sii dhameeyo hadalka xaqiisi markii macnaha loo gudagalo wey waxayna ila tahay nimanka sidaas macnaha hadda samaynaya waa niman khaas ha weeyaan wax caama maaha waa shakhsiyaad wey dadkana doonaya inay iyagu wax ku shubtaan waxay ku shubtaanna ay ku hawlgalaan niman raba weeyaan waana niman xataa gumaysiga waddanka haystiya etoobiya niman ka tirsan oo kusii xeel dheer maahe waa niman waxa weeyaan iyagu si gaara cuqdad u haysa wey abwaan la dhihi jiray makayte yaa wuxuu yidhi ku soco inaadeen hadalkaaga yar dibdeji inaadeen waad yar joojinaysaa wuu dallacayaa dambi dhaaf in ku soo celi inaadeen ku soo celi codkaaga googo'aya halo faysal inaadeen waan ku soo qaban deeqow soo dhow walaalkiis aad baan ku salaamayaa faysal daahir asalaamu calaykum soo dhow walaal haye walaal hadda khadku ma kuu hagaagay war waa nin kale waa faysale waan ku faysal waan ku arkay adi laftikaagu kaa taagnaa hadda markaan kusoo qabtay kool iyo waxaa kusoo galay baan malay kool baa soo galay waa fiican tahay soo maha waan fiicanahay naadir ku soco barnaamijka barnaamijka waan la socdaa kolley waxaad tidhi raggii markii hore inaan onala fahay la dagaalamahaya haddana waxay rabaan inay igula dagaalamaan heego soo saa ma ah yaaha oo magac heegaa ay ii bixiyaan horta heego dadka gobolka jooga dhalinyaradaha xukuumaddii maxamuud ina ilay joogay u adeegaysay unbay hayeen dad meel kale laga keenay ma ayna ahayn runtiina waxay la tahay siyaasaddan dad baa waxay rabaan inay majara habaabiyaan oo ay ku celiyaan waktigii 91kii oo kale horta barnaamijka noocaas ahaa la rabaa oo la rabo in dadka waagii 91kiiba ummadda calamaa la siiyey calanka gabooyaha calanka maxayga calanka maxay calan maxay waad ogeyd calamadii la bixin hayay horta barnaamijkan runtii waxa meesha ka jiray iyo nidaamka ka jiray waad ogtahay dadkaad hadda nimankan aad hadda adu dulmidiid leedahay anu horta dulmidoon baanu aqaanaa nimankaas sideedaba